madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama uga qayb galay kulan degdeg ah oo boqorka Sacuudi Carabiya Salmaan bin Cabdicasiis oo isugu yeeray dalalka ku bohoobay wadamada Jaamacadda Carabta. Shirkan ayaa looga hadlayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalalka Jaamacadda Carabta, danaha wadajirka ah ee ka dhaxeeya iyo sidii loogu midoobi lahaa dhibaatooyinka iyo caqabadaha ku xeeran dowladaha iyo shucuubta Carbeed. arrimaha ugu waaweyn ee shirkan la iskula soo qaaday sida gaarka ahna diiradda loogu saaray waxaa ka mid ahaa in la cambaareeyo lagana hortago faragelinta Iiraan ay ku hayso qaar ka mid ah dowladaha Carabta iyo sidii loo xakameyn lahaa gantaalada Maleeshiyada Xuutiyiintu ay ku weeraraan wadamada Khaliijka, gaar ahaan weeraradii ugu dambeeyay ee ay ka geysteen Sacuudiga iyo xeebaha Imaaraadka Carabta. waxaana gabagabadii shirkan laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban. dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulanka kadib waxa uu kulamo gaar ah la qaatay madaxdii shirkan ka soo qayb gashay oo ay ka mid ahaayeen madaxa golaha ku-meel gaarka ah ee dalka Suudaan Sareeya Guuto Cabdifataax al-Burhaani iyo ra'iisul wasaaraha dalka Qatar Sheekh Cabdullaahi bin Naasir bin Khaliif Al-Thani. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha looga hadlay shirkaasi degdega ah ee madaxda Jaamacadda Carabta ay yeesheen iyo kulamada madaxweyne Farmaajo uu la qaatay madaxda Suudaan iyo Qatar. shirkan ay isugu yimaadeen 22 dal ee ka kooban Jaamacadda Carabta waxaa lagu lafaguray amuurihii u dambeeyay ee taabanayay dalalka bahwadaagta ku ah ururka Jaamacadda Carabta. shirkan intuu socdayna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu kulan doceedyo la qaatay ninka haatan hogaamiya maamulka ku-meel gaarka ah ee Suudaan Sareeya Guud Cabdifataax al-Burhaan. wuxuu sidoo kale madaxweynaha kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha Qatar Sheekh Cabdullaahi bin Naasir bin Khaliif Al-Thani. ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna wuxuu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Suudaan iyo sidoo kale Soomaaliya iyo Qatar. madaxweynuhu sidoo kale maanta wuxuu kulamo la qaadan doonaa madax kala duwan oo ka soo qayb gashay shirkii xalay iyo kan caawa la qaban doono oo ururka iskaashiga islaamka isugu imanayaan. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, codka Bariga Afrika, Muqdisho.